ciidamo tiro badan oo dhinaca maamulka Jubbaland ka socda ayaa la warinayaa in tababar loogu sameynayo degmada Doolow ee gobolka Gedo. sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijkeenan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mucaaradka u diray mar kale exercise amaba shaqo siyaasadeed oo mar kale uga baahan mucaaradku inay ka soo hadlaan. soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo boqotaan waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose faalan aragtiina wala wadaagtaan, sidoo kalena saaxiibayaal ku soo dhawaataan wararkeena Soomaalida kuwa ugu waaweyn ee gudaha iyo sidoo kale caalamkaba. haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo boqotaan waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose faalan aragtiina wala wadaagtaan mar kale soo dhawaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale. aynu ku bilowno dowladda Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafay ba waday dhaqdhaqaaq ciidan iyo sidoo kale garab istaag xooggan oo ay u muujinayso mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. gaar ahaan maamulka Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in gaadiid iyo hub tirabeel ah iyo ciidamo cusub oo ay tababar ugu soo xirtay gudaha qayb ka mid ah wadankeeda ayaa la geeyay dhinaca degmada Doolow ee gobolka Gedo. xogaha kale ee aynu helayno waxa ay sheegayaan in dowladda Itoobiya ay tababarkan u soo xirtay ciidamadan la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo. si gaar ah waxaa la tilmaamay xuduudda labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. waxaa la warinayaa in deegaanka lagu magacaabo Suufka oo ka mid ah meelaha ay ku badan yihiin ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan gobolkaasi Gedo ay hubkan iyo gaadiidkanba ku soo bandhigtay. waxaa xogahan helayno sidoo kale ay sheegayaan ilo amnina ay xaqiijinayaan in hubkan iyo gaadiidkan ay Itoobiya u siisay daraawiishta Jubbaland si looga xasiliyo ama loogu xasiliyo awoodda amni ee gobolka Gedo iyo guud ahaanba deegaanada kale ee Jubbaland loogana hortago fal kasta oo dhinaca Jubbaland lid ku ah, sidoo kalena ka yimaada dhinacyada kala duwan ee ku sugan gudaha Soomaaliya sida Daacish iyo kooxda Al-Shabaab. wararka ayaa sheegaya in weerar kale ay iyagana dhici karaan kuwaas oo ka dhan ah ciidamada maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo oo hadda dowladda federaalka Soomaaliya dagaal xoogan ay kula gashay gudaha gobolkaas gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gedo. sidoo kale ila wareedyo ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay iskaashi amni iyo sidoo kale mid dhaqaale oo ay Jubbaland la sameysanayso dowlad goboleedkaas amaba wadanka Itoobiya si loo xasiliyo ammaanka gobolada koonfureed ee dalka gaar ahaan maamulka Jubbaland. dhinaca kale arrintan ayaa dhalisay hadalhayn xoogan iyo walaac siyaasadeed iyada oo weliba ay jiraan in dhinacyada ay ku doodayeen in hub si toos ah dowladda Itoobiya ay u soo geliso Jubbaland ay tahay wax aanan horeyna looga filayn, sidoo kalena haddana amaka ku noqonaya dowladda dhexe ee Soomaaliya oo mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay ilaalinta amniga ee wadanka. ciidamadan iyo gaadiidkanba waxa ay muujinayaan sida Jubbaland ay u helayso garab istaag xoogan oo uga imaanaya dhinaca wadanka Itoobiya. ma ahan Itoobiya markii ugu horeysay oo gaadiid ciidan iyo sidoo kaleba hub ay siiso maamulka Jubbaland. tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada tooska ah ee maamulku uu la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xilligii Raas Kamboni ay dowladda federaalka Soomaaliya ku daabacday ciidamadii ugu badnaa ee ka socday dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwii laga qaaday Muqdisho lana geeyay Raas Kamboni. waxa ay dowladda Itoobiya ay garab istaag xoogan u muujinaysay oo dhinac walba leh dowlad goboleedkaasi Jubbaland ilaa heer Raas Kamboni laga soo saaro ciidamadii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhowr cutub ka koobnaa halkaasna loo geeyay sida ay dowladdu sheegtay in la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab, halka Jubbaland xilligaas ay qabtay aragti ah in loo diray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. arrinta ayaa ku soo dhamaatay gobolka Gedo. dowladda dhexe ee Soomaaliya ciidankeedii Raas Kamboni waa ay kala soo laabatay, hadda gobolka Gedo ayay ka dejisay oo iyagana hadda la warinayo in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan uu ka socdo. Jubbaland waxa isku dayaysaa in deegaanada ka maqan gacanta maamulkeeda ay mar kale dib u soo ceshato sida Beled Xaabo oo dagaal looga saaray ciidamadeedu inta ay socdeen dagaaladii tooska ahaa ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku dhexmarayay gudaha maamulkaasi. waxaa dhinaca kale wararka aan helayno ay tilmaamayaan in gaadiidkan tirada beelka ah iyo sidoo kale ciidamadan tababaran iyagana loo jihiyay dhinaca gobolka Gedo,
hadda si ay ku sugan yihiin degmada Doolow ee gobolkaas goobjoogna uu ka ahaa bandhigga gaadiidkan gudoomiyaha degmada Doolow ee dhinaca maamulka Jubbaland isaga oo waliba ballan qaaday in sida ay u tahay oo dowladda Itoobiya ugu tala gashay in amniga guud ee gobolka Gedo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland wax looga qabto ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah oo ka imaanaysa dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayso arrintan maadaama meel ka dhac iyo sidoo kale in wax la aqbalo aysan ahayn maadaama wadankeena uu yahay wadan dowlad Soomaaliyeed ee maamusho sidoo kalena madax bannaan waxa lagu soo daabulay ama waxa la keenayana ay waajib tahay inay ogaato dowladda dhexe ee Soomaaliya ilaa hadda ma jirto dowladdu war ka soo baxay oo arrintan ay kaga hadlayso dhawaan dowladda Itoobiya gaar ahaan mid kamid ah la taliyayaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu warbaahinta u sheegay inay waajib tahay Itoobiya inay hesho dhul badeed laba midkood ayuu sheegay ninkan la taliyaha ah inay kaga fududahay inay ka helaan ama Somaliland ama Jubbaland waliba si gaar ah waxa ay diradda u saareen dhinaca Jubbaland maadaama Somaliland kol hore isku dayo ay sameeyeen ay ku fashilmeen haddii arrintaas ay dhacdo oo ay dhulbadeed helaan dowladda Itoobiya ay hesho meel iyada u madax bannaan oo wax kasta ay ka soo degsan karto ay u suura gali karto Itoobiya inay dib u soo ceshato maamulka wadanka ka go'ay hadda oo Eritrea lagu magacaabo badda casab ayuu tilmaamay la taliyuhu in aanan lagu tilmaami karin meel ay leedahay Eritrea oo ay tahay meel ay leedahay Itoobiya laakiin taa bedelkeed ay imaan karto in la helo marka koowaad dhulbadeed u madax bannaan dowladda Itoobiya oo midkood ay ka heli karto Somaliland ama Jubbaland hadda ciidan ayaa loo tababaray hubkii ugu cuslaana waa loo geeyay oo xilligan waxay u muuqataa inay ku dadaalayso sidii ay bad u heli lahayd laakiin Axmed Madoobe lama oga jawaabta sida ay noqon doonto haddii Abiy Ahmed uu la yimaado in uu ka doonayo dhulbadeed oo waliba uu isagu u madax bannaan yahay maamulkeeda wax kastana uu kala soo degi karo waxaa jira caawinaado kala duwan oo dowladaha kala duwan ee xubinta ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka helayaan wadamada caalamka taas oo keentay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood caro xoogan ay ka muujiyaan la jirka dowladda dhexe ee Soomaaliya sida Puntland iyo Jubbaland oo hadda khilaaf xoogan oo aad u culus uu kala dhaxeeyo dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay waxa khilaaf uu ka dhaxeeyay madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa ku soo darsamay Axmed Madoobe oo isagana ay kala goosteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Itoobiyana waxay garab u tahay inta badan maamul goboleedka Jubbaland ilaa heer la gaaray in talis nabad sugid ay ku weerarto degmada Doolow ee gobolka Gedo intii ay socdeen dagaaladii tooska ahaa ee u dhaxeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland aynu markan ku soo gabagabayno saxbeel madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xisaabtan siyaasadeed ayuu mar kale la geliyaa mucaaradkiisa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ahaa in 20ka bishan laga bilaabo ilaa iyo 30 maalin ay ku soo qaban qaabiyo ama uu ku qabto kulan ay ka tashi ama wada tashi ah ayuu sheegay inay aqbashay Villa Soomaaliya laakiin waxa muuqata in wali bisaal siyaasadeed oo wada hadal uusan ku jirin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 25ka bishan waxa dhacaysa doorasho uu ku sheegay inay tahay doorasho gole deegaan si weyn ay kaga soo horjeedaan mucaaradka dalka lama oga sida ay u dhici doonto doorashadan maalinta Khamiista ah ayaana la filayaa inay dhacdo oo magaalada intooda badan waxa lagu soo rogay bandow dhinaca hawada isu socodka dadka iyo gaadiidka goobaha waxbarashada oo la xiray kuwii caafimaadku iyagana qarka u saareen in albaabada loo laabo guud ahaanba waxa ay dhici doonaan maalinimada Khamiista ilaa iyo inta aan la gaarinna waxa socda olole doorashooyin oo ay wadaan xisbiyada la aaminsan yahay inay garabka u yihiin xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba saaxiibayaal aragtidiina qaybta hoose ee faallada waad nagu reebi kartaan sidaad u aragtaan in doorasho lagu muransan yahay oo aanan raali lagu ahayn oo gole deegaan lagu sheegay in laga qabto gobolka Banaadir mase dhici kartaa in madaxweynaha yimaada uu kala diro golayaashan deegaanka dhinaca kale Axmed Madoobe oo ciidan iyo gaadiidba ka helaya Itoobiya muxuu ka damacsan yahay dowladda federaalka iyadoo dhawaan la ogyahay inuu ku dhawaaqay in Jubbaland ay tahay dowlad ka madax bannaan ama dowlad madax bannaan oo sida dowladoo kale ay u dhaqmayso sida dastuurka uu qabay laakiin ugu dambeyn wax ka bedel ay ku sameeyeen baarlamaanka dowlad goboleedkaasi qaybta hoose falada aragtidina nagula wadaaga haddii ay tahay markaa kugu horeysay ama ilaa dhamaadkana la soo gaartana waxaan ka codsanaynaa mar kale in nagu soo birto saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose falada aragtidina nagula wadaagtaan mahadsanidin